waxaan kula wadaagayaa macluumaad ku saabsan jinka haddii ay tahay xilli habeen ah adiguna aad cabsi dareemayso fadlan haddaaba muuqaalkan meelaha ay jinnada jecel yihiin inay joogaan waxaa ka mid ah musqulaha, goobaha wasaqda, godadka, dhirta waaweyn ee meelaha cidlaha ku taala, guryaha qadiimiga ee aan la degnayn. Iska ilaali inaad si fudud u dhex marto ama u degto meeshaas, gaar ahaan adigoo keliga ah. Ha hor istaagin muraayadda habeenkii adigoo qaawan iskuna fiirinaya. waxaa la sheegaa in haddii aad tahay gabar uu ku jeclaan karo nin jin ah, haddii aad tahay nin naag jin ayaa ku jeclaan karto. Tani waxay noqon kartaa albaab uu jinku galo si uu noloshaada ugu dhex milmo. Qaar ka mid ah jinka waxay isugu beddelaan xayawaano sida bisadaha, eey ama xitaa shimbiro. haddii aad habeenkii aragto xayawaan si aan caadi ahayn kuu eegaya ama si toos ah kuu daba socda, gaar ahaan sida bisad madow, adiga aad ka cabsanayso, waxaa laga yaabaa inuu yahay jin. ka carar meeshaas isla markiiba. qaar ka mid ah jinka waxay u muuqdaan sida dad caadi ah, laakiin mararka qaar indhahooda, codkooda ama socodkooda ayaa kugu dhalin kara dareen ah wax sax ma aha. waxaa dhacda in dad qaar ay la hadlaan qof ay u malaynayaan inuu yahay qof caadi ah, balse markay yidhaahdeen qofkaasi uu iska baaba'aa ama way waayaan hal mar. haddii aad qof aragto ama la kulanto meel cidla ah isagoo si aan caadi ahayn u hadlaya ama ku fiirinaya, ha istaagin, hana u dhawaanin. jinku waxay mararka qaar galaan riyadaada, waxayna bilaabaan inay kula hadlaan si tartiib ah, ayna ku tusaan waxyaabo cabsi leh ama aad toosto adigoo dareemaya in culeys jirku kaa saaran yahay.